munaasabaddan tababar lagu soo xidhayay 152 saraakiil iyo saraakiil xigeenno ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo muddo 2 sano ah cilmiga militariga ku baranayay dugsiga tababarka Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay xaruntaasi waxaana munaasabadda ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha aqalka sare saraakiil ka kala socotay qaybaha kala duwan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan saldhigga Turkiga ee magaalada Muqdisho taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah waa maalin taariikh weyn ah waa maalin qiimo leh dalka Soomaaliya gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed burburkii 1991 waa dufcaddii ugu horeysay ee ka soo baxda kuna qalin jabisa leeyli saraakiisha dalka gudihiisa waxay u galaysaa taariikhda waxaana xusi doonta taariikhda waa maalintaas ay iyaguna ku faani doonaan inay ahaayeen dufcaddii ugu horeysay ee ka qalin jabisa dalka gudihiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa kula dardaarmay saraakiisha iyo saraakiil xigeenada tababarka la siiyay inay waxyaabihii la soo baray ay shacabka Soomaaliyeed ugu adeegaan madaxweyne Farmaajo ayaa intaasi ku daray in saraakiishan looga baahan yahay inay noqdaan kuwa wadaniyiin ah oo aaminsan inay dalka leeyihiin waxaana uu dowladda Turkiga u mahad celiyay sida ay u karab taagan tahay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed Turkisom Academy aan kulligan marxaati ka wadnahay inay qalin jabiyaan saraakiil iyo saraakiil xigeenno 29 sano kadib waa maalin taariikhi ah oo kulligan aaminsanahay inaan qiiraysanahay waxaa yeelay inay noo soo baxaan dhalinyaro 2 sano ku jiray academy oo bartay cilmiga militariga nooc walba leh iyo saraakiil xigeenno waxaad ka heli kartaa oo kaliya saaxiib iyo walaal yaad ka heli kartaa dufcaddani maanta qalin jabisay ayaa dufcaddii labaad ee ka qalin jabiya dugsiga tababarka Turkiga ee magaalada Muqdisho waxaana xerada wali ka socda tababar la siinayo ciidamo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Bariye telefishinka dalka Muqdisho.